أنا استعمالين إنه جيد هرسايا أو حقيقي من نقل يرى وحكم مغضى قعنتنا وشكالان تهي فاشدي وحنا وجدوبينهين نيجي واحد يري نيجي وحناها نفر يامه ودتك جوريها لسه كم ده أنا وجوري سارنا وجوري كسر دعاية يري بل كان يجبي كده من كمها أنا وجد الله يساري شقدي فريامه شقيسة جيرنا وشقيسة واي قاعد أنا جوري يسوع سارتي وعن ربا إن النفط يعليده مقال كيس مركن فيري وعن سير أمو نفط واحد يشكت إنه كبين شيء جاي كبها أنا كب معملة والله سوا صارت جعنته والله قلت تساويه النفط يدي يوشكيس هذا أنا وعن سيري هذا ساعة إن كان قدرته هو أترى هذا الله والله نو كلمة كأجدا أو نكو شيء هذا اللي يرده هي أما يرنت هي والله عقابة قيامة ودباتك وقول عدا gurigi markaas gurigeyga meesha ka dhawaayaan telefoon u diro waxaan qadadii ka warrama qadadii maxaa ka dhiman waxaan siirinta lacag siilaheed waxaad siidaa raashin oo cuno oo hadii gaajadu ay run tahay oo ku gaajo beelo qadadii maxaa ka dhimanay cidii waxa la yiri hadeertaanay qadadu dab ka degtay waxaan qadaha la soo guro nin baahan ku filan hana layla soo ordo qadadii wala soo guray ayadoo kulula la keenay ninkii yaa la hoos dhigay qadeeyan irwaatan hadaad baahan tahay ku baahi beel qadada runtii ninkii markuu qadeeyay oo qadadii dhameeyay wixii meeshaas ka dhacay wax laga naxay ahayd ninkii qadadii waa dhameeyay dhididkii asaga ka baxana weelkii xataa waxbu weelkii wax badan ku daayo dhididkii asaga ka baxay ah markuu qadadii dhameeyay mar allaala markaan arkay ninkii soo qadadii u dhameeyay iyo soo dhiiday markuu qadeeyay kadib markaan arkana waa naxay maxaan ka naxay haddaan ninka sidii hore ku diri lahaa ninku wuxuu sheegay runay ahay inuu jaban yahay Allahu a'lam inuu farayaamay yahay Allahu a'lam laakiin inuu baahan yahay xaqiiqi ahayd runay ahayd soo qadada u dhameeyay kuleelkii u cunay u dhiiday markuu qadadii dhameeyay markaan arkay waa isku naxay waxaan sir ninka hadda diri lahayd maanta ciqaaba meeshan ka dhalalahayd marka dadka saas oo kale ayaan la fudaysan waxa kale oo qatar ah mararka qaar qof baahana ku iimaanay wuxuu ku leeyahay walaal waa baahana iyada laftirkeedu waxa laga yaabaa waa baahana markuu yiraahdo tira qaday ee uu ku yiraahdo qada aan kaliya qadeeyaa waxay u tari meeyday ilmahaygaan baahay iyo islaanteedan baahay u soo tagay islaanteena waa umulay ahayd iyo kada fulaanay ahayd waxaad isiido aniga ilmaha say noogu filaadaan lacag ahaan noo si aan ilmihii hortood wax cuni kare aan ilmihii waxay aad isiido wax ka siiyado ku yiraahdo hadheeshanin ha u qabin inuu jaad kaliya kala baxaa u malayni inuu tubaad kala baxaa kaliya u malayni inuu guriga ka dhisaa kaliya u malayni ninkan waxa markuu ku sheego dad baahan oo ku sheegay ama raaco soo xaqiiqi wixii ama waxaad haydo ilaahay ku siiyay si wax waa lagu sheegay sidoo kale nabiga kaleey salaatu wasalaam isla xadiiskan wuxuu yiri wala an amshiya ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadha almasjid shahran wuxuu yiri inaan qof walaalkay aan raaco saan dantiisa u soo firiyo waxay iiga fadli badan tuu yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam masaajidkan aan joogo masjidul madiina hal bil inaan ku i'tikaaf waa midkii Sheikh Abdurrahman hadda uu naga hadlayay markii muxaadarada uu cilaaminayo oo lahay masaajidka lagu nagaado i'tikaaf la niyeysto maghrib iyo cisha inta ka dhaxaydana masaajidka fadhiida waad aragtay dhibkay kugu haydo hal bil in masaajid la dhex fadhiyo maxaad malaynay dhibka ay leedahay waa badan yahay dhibkeedu ajirkeeduna waa badan yahay masjidkuna masjidul rauf oo xamar ku yaala maahe waa masjidkii nabiga kaleey salaatu wasalaam oo magaalada Madiina ku yiil hal bil inaan ku i'tikaafanay Maxamed kaleey salaatu wasalaam waxa iiga fadli badan qof walaalkay muslima inaan dantiisa u soo gudo ayaa iiga fadli badan uu nabiga kaleey salaatu wasalaam hada dana badan marka qofka walaalka u soo gudo maxaa malaynay wardanaha marka walaalaha muslimiinta oo la gudo yaan la dheeshanin ajir far badan ku sugane